السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلي ولا ما في قلبي هذه كلها تمام. سلام في هذه كانت تمام. وانيجي واديكي وانا قولن تقلف اوفيشال ان ما انتو حاليا وذا برنامجكي تقلف ان هدي أد نوع سبتاهي سبسكرايب هدي هورن ولا جبت لايك كومنت شير فيوز كيغن هو إنه مهم أصحابي هل تكسو قذا بإذن الله هاي sida aan wada ogsoonahay siduu u burburay dalkeena qalbiyo badan ayaa u burburay sidoo kale dad badan ayaa la fadhiyo sheekooyin badan oo jeceladooda hore iyo qalbiyadooda hore siday u jabeen okay mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed oo ku dhacay dhibaato aad u fara badan qise ay ka sheekeynayso ayaan la wadaagayaa ee dhageysta aan ku sii socono okay anigoo aad u yar oo gabar yar ah oo da-aada 15 ka baxday baan waxaan xiriir yeelanay wiilka horta intaan xiriir lahayn wiil walaalkay saaxiibkiis ahaa oo gurigayga joogay oo aad buu marka iga helaa gabar yar iska qurxoon baa ahaa oo markaas oo kacday wiilkaas marka aad buu iga helaa helitaanku iga helay wiilkii walaalkay saaxiibkiis ahaa gabar yaraan ahaa marka walaalkay saaxiibkiis buu ahaa ilaa iyo 13 ilaa iyo wixii ka horeeyay ka dambeeyay ilaa iyo 17 meelahaas uu nala joogay marka aad buu iga helaa marka gabar yar baan nahay teleefankii ugu horeeyay markii la ii keenay wuxuu ii soo qori jiray heeso jacayl oo message ah heesahaas baan iska akhrisan jiray marka damaynaa walaalkay la wadaago ama qof familygayga la wadaago wuxuu oran jiray cidnaha la shaa u sheegin waxaan ku sii barayaa sida xiriirka ama shukaansiga u baran lahayd maadaama teleefon qaadatay oo gabar yar tahay oo wax badan aad ka aqoonin xiriirka jacaylka marka oo ku soo tababarayaa buu oran jiray marka wuxuu dhihi jiray cidnaha u sheegin okay baan dhihi jiray sidii baan maaragtay wuxuu ii soo qoro u akhrisan jiray heeso jacayla oo message ah wiilkii wuxuu socdaba ma kolba nin buu nambarkayga soo siiyaa wuxuu dhahaa dhucisha yartaa soo saar banaanka u soo bixi si aan chance ugu helo asaga ulajeedkiisu markaa wuxuu ahaa inuu maaragtay nimankaas banaanka markay ii soo saaraan afduubasho camal dhalinyar badan intuu isku soo dhex qariyo si uu maaragtay wuxuu rabo iiga samaysto ama maaragtay la ii geysto maaragtay fal aad u xun jacayl laakiin dadkaana markii aniga dhucil yar iska ah walaalkii camal u haystay markaa madaxa dhaqanayo timuhu biyaha igu shubi jiray surka xaad baa ku leedahay waxaas dhihi jiray wiilka maxaa ka khaldan marka walaalkay camal buu ii ahaa oo gurka ma xiran jirin gabar yar oo markaas waxaa naas ugu soo baxeen ilaahay qurux siiyey waan iska qurux badnaa marka inaad dharka xiratay maadaama wiilka anoo yar 13 anoo jira buu guri ku soo biira wiil wuxuu ahaa guriga ka tirsan walaalkay iyo asagu isku sida ii ahaayeen yani isma qaawan jirin laakiin surwaal jeenisa iyo dirac iyo waxaas baa iska qabi jiray waa iska madax qaawanaan jiray ilaa naasi inta ii soo baxayeen buu meeshu taagnaa walaa ku suganaa marka waxaa dhacday wiilkii damacaasa galay ee shaydaan baa qaaday maalin bal nambarkayga niman buu siin jiray gabadhaas soo shukaansada gabadhaa banaanka usoo saara markaa daaqada agteeda nimanka keena wuxuu oran jiray nimanka maa u baxdid ma soo shukaansatid ma soo baratid maxaa iskugu galasaa in lagu guursado maratid miyaa inaa casho lagu geeyo maratid miyaa markaas waxaan dhihi jiray maya ma rabi nimankan ma u baxay qadro sidiisa u ahayd adi ultimadii wuxuu sameeyay wuxuu ugu dhaay wiil Mareykanka ka imaanaya oo saaxiibkaya baa maanta soo bandoonana airportka ka soo kaxaynana ka waran wiilka hadda ku qabsatid wuxuu rabaa gabar u guursado inuu ku dhoofiyo ku aroosu rabaa waadka qorsho dogaan filaa waxaan ku iri aad ba soo dhaweynaya lagama hadlo wiilka iskaaya bar
diyaar baa u ahay qadaa sameynaya marka uu ogyahay inaan qadada intaan daayo aan raacin airportka u raacin sheekaduna sheekadeena ahayd wax airportka imaaniyo wax maraykanka imaaniyo ma jirin adi wuxuu wadaba wuxuu igu yiri wiilka airportka ka keenay wiilkii airportka ka keenay hotelkaasuu degan yahay markuu nasto uu week joogo baan doonayaa inaan ku baro haye baan ku iri habeenada kamid wuxuu igu dhahay caawa wiilkii baa soo kaxaynayaa halkaas oo inaan ugu timaadaa meeshii igu ballameen baa ugu tagay wiilkii baa is aragnay wiilkii maaragtay luqad 4 xabo ingiriis ah Soomaali jajaban waxba isku soo toosiyay marka uu sheekada dhaafay wiilkan isagoo saas niman dhahaya nimankii markuu ka qustay buu niman wuxuu ku yiri waxaan doonayaa nin aan $100 siiyo oo dowlad xuno kibirtay halka joogta iyo soo saara oo maaragtay ninka waxa sameeyay mar guriga nugu noolyahay guriga nugu noolyahay isha saxda nin iyo soo saara oo maaragtay yaan maaragtay ku dhaho jacayl ku abuura intaasoo nin bay saa u gashay nin waxa raba khabiir ah oo ishaas maaragtay meel saara soo saara daaqada ka soo saara wiilkiiba wuxuu yiri ooyay tahay ishu ay qolamo reer qasax miya aha wiilka reer qasax waa isaga ahayn isku qasax oo saas la ahayn wuxuu yiri ID ba soo dhijinaya hada naagta ku dhaana ka sheekay gawdho qort ma jeceshahay biro nimanka qurbaha siiraha waa dhuxul yaraad soo kacdayo aad bay u jeceshaa qurbaha marka ayagu yiri filinkiiba wiilkii soo tagay biro qurba joog baa iska dhigaya ninkaas ku soo galana gabadha taas ku soo xareena suuruhu laga maalmo ay filinkiiba isku soo isteen kadib wiilka aniga ila imaada ma garata ku soo markaas sidii buu ila imaaday wiilkii airportka laga soo dejiyay hotel buu joogaa buu igu sheekeeyay adii wuxuu yidhi nasto nasniina kadib wuxuu yidhi halkaas noogu imow meeshiiba ugu tagay meeshii marka ugu tagay baa waxa dhacday wiilkii waa iskaaya baray ingiriis iyo Soomaali jajaba iyo maaragtay sida loo soo labistay iyo wax filinka dhan maaragtay wuxuu ahaa filin laga soo shaqeeyay la soo diyaariyay oo aniga mission la rabin la igu dhigo laakiin wiilkan daacad weeyaan ma rabo inuu mission ii dhigo maadaama isku qansaxslanahay wiilkii waa iskaaya baray waa ka helay waa aaminay intaas wiilkaas la joognay hooyadiis wuxuu ka dhigaa inay soo wacdayo mishinka maajin telefoon khiyaaliyo ama wala khiyaali ma yank qof baa ka dhaxlay ay filin isku soo toosiyay waxa laga soo shaqeeyay oh my god hooyo miya armaajadii ma soo dhacday alla waa la xiri doonaa police baa imaan doona unaga dhaqaaqa shit aniga waaba ka helay ingiriis ku hadlayo wiilkii waa isbaranay telefoonadii waa kala qoranay sheekadii waa noo socotay rabadaan baa soo gashay jacaylka adduunkana dhex maray wiilkii si lilaahi u jeclaaday isaguna si lilaahi u jeclaaday kii kale shaydaanka ah uu nagu dhex jiraa oo wuxuu sameynayaa markaan maaragtay uu u jeeda xaaladda meesha maraso inaan reerkii dhan cuntadii ka gubay suuliga telefoonkii la galayo aana maqana jooga ahayba marka wiilku waxaan leeyahay wiilku ku dhoocays aragno bil anaga iskuhsanana rabadaantii baa dhamaatay rabadaanta dabayaaqadeedii wuxuu igu dhahay caawa is arkanaa sawiraan ii soo qaad ana sawiraan baa ku soo qaadaya haye wiilka nagu dhex jira ogow wiilka isku tagnay wiilkana nagu dhex jira sawiraanta baa kala qaadanay sawiraanta markaa kala qaadanay wuxuu sameeyay wuxuu yiri aragti dambe xiisa leh haye bas wuxuu yiri marka aniga meeshan ma kala aqaani wiilkana isoo wada ani adigana ma rabo in qof nagu dhex jiro inta ka baranaya wadadan oo dad area gurigiina inta ka baranayo iidu qaada buu ku dhahaa marba qof saddexaad markasta inuu nagu dhex jiro ana isoo kaxeeyay markaas salaatan waa isku naatay waa kulankeeni laba bilood bayna ku sii dhowda wiilkaas nagu dhex jira ilaahay ma qaanaan xaafadaada maadaama qurbaha ka imaaday wariyaan kugu taalanada wiilka wax wada socono sheekadeena sida ku socoto xiriirkeena socdo jacaylkeena si aniga waa sida u ahayd wiilkii aan leeyahay ma is aragtaan
ninkii wuxuu ogaaday labadeena inuusan dhex geli karin oo jacaylkeena meel xun maray. horta mobilkaygu maalin iga qaatay qoraaladaas ku qoranay message-yadii wixii dhanbo arka wuu samray marka wuxuu meeshaan booskaaga ma banaana. habeen kasta hoteelka isku arkaan wuxuu dhahaa war naagti maxaa dhacay suu dhahaa warsu waa hay aaminto isku ka dhiibtee war naagta uu ku jeceshaa meesha marayso waa arkaaye naga soo afjar sheekadan oo naagta soo saar oo dheh meesha waa bartay caawa aniga ii soo bax haddaa dhahda xitaa magaalada dabadeedii ku imaanaysaa qoftu ku jeceshahay. bas markaas waxaa iri wuxuu yidhi usug u kaadi adi markuu arkay meeshii xaaladeenu marayso wuu ka tashta ninkii already wuxuu marakan taagan yahay inuu aniga igu dhaho soo bax nakeen beenaarintii la marinayay xaafadda hooyihii xaafadaha dariska baa la iska aaday wiil walaalkii xaafad daris ahayn cabaar noo jirtay bay u socday isagii saaxiibkiis markaas waxaa ku dhahay abu ayna sii raaco markaasuu yidhi may micnaa kusii kaxaynay iska dhaaf sii tagaan nakeen gabadha dheer baxtay saaxiibkii waa wacitaana bixin waxa ku dhahay waa seexanaya haysaa ugu caawo fiid baa seexanaysaa haa ma ogtaa haa haye laakiin ha bixin banaanka ma u bixi karti maqribadii la gaaro haye adi waan baxay wiilkii waana gabadha dheer qaba ka daba qob ire ilaahay qadartiisa hoteelka wiilka ku caweyn jiray meel cabaad u jirta luq waa iskaga soo horbaxana aniga wiilkii kalena daba socda marka cabaar buu noo jiraa ninkaana niman buu soo diyaarsada oo wuxuu usoo diyaarsaday inuu dhaho anigana ibugeeya naagtana ka haysta ama ka daba imaanaya hadhow. bas wiilkaas kasoo horbaxnay wiilka marka meel kore luq asna horey buu kasoo gelaya anna meesha anna waa soo socda asna wuu sii socdaa marka waa cabaar baa isku jirnaa hadda hore markaa siiyey qabiibaa gacanta ku qaata waa carra gadaal baa waa carra gadaal markaa waa carra luq kala gala wadnaha i boodboodaya taleefankaa fiirimis waa isaga wii wacaya xaggee joogta waa hurdaa guriga jooga naa beenha ii sheegin haa oo qofta arkay adiga ma ahayn miya may bismillaahi waa hurdaa shay u ahay okay qofaana ogeyn ha raacin haye waa dhaqaaqa taleefankii baa wiilka ku jirtay waan wiilkii waa sii dabagalno markaasaan waxaan arkay yaalo kurayo badan oo meel kasoo xumaya soo socda marka guri baa igu horbeegan gabar kasoo baxday oo waxay dukaan bay gashay marka cabaar u jira dukaanka markay gashay gurigii baani horta inta hor istaaga ku dhahay aboo wiilashaan wax kastaa ka suurtoobee gurigaa nagu soo leehay furan firmaano kula socdaa baa cid wax kugu samayn kartaa ma ii aaminaysid miyaa anana igu gastaa waxa ku dhaha kalsoonida waxa ka muhiimsan waa lagaa badan yahay magaalada ogta waxa ka jira adi wiilka marka hadalka isku wada muranay nimankiina soo socdaan ana waa carari baag baa kala qambaasiye wiilal meesha ku jira u galay anoo qaylinay ordaya walaalkii niman baa halkaas oo markaas igu qaylin waxay dhaheen gabar walaasheena dukaanka u doontay wiilashaas oo kala yaacay gabadhii dukaanka soo kaxeeyeen guriga soo xireen dadaaka lagu soo karkaraa gabadhaas oo walaasheen suuxdimay qabtaa jinniyaa kusoo kacay noo soo saara waa wiilkii iyo dhowr wiil kuwii kalena meel bay galeen ku dhunteen soo bax adima jinniyaa qabtaa may qof caadiya ahay waa u dhaarta waa ooyaa waa qayliyaa walaalkay soo kaxeynaa walaalayne walaalaha baa banaanka taagan oo walaalay maxay yihiin nimankaas ku dooneen kii baa qaylinaya naa soo bax naa maxaa kaa haldan nama jinkii waa kugu soo kacay war jiniguma soo kicina nimanka maxaa kugu dhacan mayaa waalanta inaha adaa balaayo istusaga soo bax nimanku halkaasay marayeen yaar bay ka imaadeen may wiil baa marka wuxuu igu yidhi wiilka keligiis maahane niman baa la socda marka aniga waan yara baqa waxaan siri wiilka waxbaa lagu sameeyey ma la dilay maanaan raba inay still waa aaminsanahay waxay ugu dhan walaalaha wado walaalkay saaxiibkiis iyo waxa walaalkay saaxiibkiis baa waxay ugu dhan naga tago nagu ciyaarsahay bas saaxiibkay baa wacda marka xaaladdu ugu dhacday saaxiibkay baa wacday meesha hoteelka cabaar u jirto u jooga sheekadii baa u sheegay waxaa ku dhahay iga raali noqosas bay ku dhacday meesha sarabinaas ka soo sheekaysto wiilkiina niman baa dilay
banaanku joogay aniguna wuxuu waaya soo bax wuxuu igu dhahay ha soo bixin qori baa raadsanayaa intaa qoriga kasoo qaadanayo meeshaada ku jira maxay tahay qoriga adiga meeshaada joog ilaa wiilka sheekada dhan buu la socdaay qoriguu doontay wuu imaaday marka walaalkay baa markii dambe xaaladda run arkay inay tahay walaalkay iyo saaxiibkiis iyo asaga jina meesha uu ka tegay way soo kaxeeyeen guriga notiis jabdiinaa fadhisan walaalkay saaxiibkiis gurigay kale aniga wiilka meesha ku sheekaysana intay ku dhahayaa soo adiga ma dhaga adag tahay maxaa kaa khaldan waxaa jiro dhan baa raba inaan kuu sheego xaqiiqada dhan baa kuu sheegaya dibad kama imaan noloshaydii wadankaanaan ku dhashay dhinaca ma dhaafin adaa ku badbaadinayay ninkaasaasu kaa rabay mishin buu kula damacsanaa caawana marka wuu wacay marka isagii buu waca wuxuu yidhi meesha iga gelinahay raadso ani adiga noo tahay xabad baa meel kasta kaala dhacaya ma saasaa damcad waa laisku dhaarta adi dhaar kadib wiilkii wuxuu sameeyey dhaar kadib adiga wiilkii xaqiiqadu ii sheegay wuxuu igu yidhi waa ku jeclaaday daacad bay hadda kuu jecelahay dibad kama imaan reerkaygu waxaa weeyaan 3 waqti wax ma cunaan reer danyaraan ka dhashay haddii jaceylkeena sii wadana sina noo sii wad haddii kaletana naadeertay baa tahay ninka cadowgaaba kaa badbaadinayay desaa u ogo bas aniga sidii baa wiilka ku jeclaaday jaceylkeygii daacad buu ahaa waxaa wada socono heer guur baa isla gaarnay waxaa dhacday marka in lasoo dhex galay eedaday wiilay dhashay baa dibadda ka imaaday oo nin aada u weyna ninkiibaa marka hotel buu kusoo degay anagoo faamila booqanay booqashadii kadib wuxuu iska soo jara gabadha yartaabaa rabaa idee dhalay ilaa waa laygu daro ninku marka waa xanuunsan yahay karastar buu qabaa sokor buu qabaa dhikar buu qabaa saalid buu qabaa wiljar buuna ku socdaa qof dhamaystiran ma aha jeex dhan buu oga dhaa xitaa hadalkiisu waxba lagama fahmayo baar markuu hadlo 10 eray hal eray baa laga fahmaya laakiin waa nin lacag haysto oo ii sheeg wadanka xanuunka ugu dhacay naag wuxuu qaba wadanka u dhalata cadaana naagta markii xanuunka ku aragtay waxay rabtay lacag inay ka dhacdo janjar bay ka tuurta janjar bay ka tuurta marka wadanka wuxuu siiyey xaquuq badan lacag badan baa la siiyey oo xaquuq ah marka lacag aad u badan buu qaataa waa wiil marka iska dhaqan uu dhaqan yahay adii faamiliga waa isku dagaalay ku daro iyo lagu dari maayo qaar kasoo horjeesta gabadhaan way dhahay ninkaana waa nin weyn ma xanuunsan yahay ultimadii way suurtagali way jijid badan kadib waxaa la fakaday saaxiibkaas la fakanay way soo meerxadnay gurigoodan dhowr hameen la joogay waa la raadiyey waxaa la yidhi imaw guriga saaxiibkii baa la baxsaday guriga hooyadiis baa dhowr hameen la joogay gurigooda adi meeshaa wada joognay jaceylkeeni baa sii wadanay waxaa laygu dhahay haddaa naftaada rabtay guriga imaw guriga markaa imaaday waa u sheega xaaladdiisay u dhacday ani ninkaasi waa soo guursanay wiilkaasaan jeclahay ani ninkaan weyn ma hayo adi waa lay dilay waxaa laygu dhahay keen ninkii wiilkii baa keenay dadka waxaa layidhi lagugu daraya keen ninka wiilkii markaa keenay waxaa ku yidhi waa laisku kaya darayaa waa laisku kaya si fiican faamiliga dhan si maaragtay aabbaha soo kaxaysaa lagu yidhi hotel baa lagu balamay walaalkii qori buuba iska soo jara allaha naxariista hadda u dhinta wuxuu yidhi naftaada daarkii ku dhawaaq hadda gabadha dalqadaheeda aabihii baa meesha jooga oo adeerkay aabihiis waa adeerkay oo isku faamil baa wiilkana adii labadii jifiba labadii dhinacba way joogaan isku hal dhinac weeyaane adigu wixii muran kadib aabihiis wuxuu ku yidhi reer fakhriyaad tihiin isma guursan karno gabadheeda ma dhaqan kartaan nin baa iga soo doontay baawur ii gaday kharash geliye lacag siiyey gabadheeda ii furo adiga wiilkii soo raali ka ahayn meesha wuu igu furay $100 meherka baa laga qaaday xitaa lama siin sidii baa guriga waa layga kaxeeyey marka guri waxaa la geeyey adeerkay oo kore oo dhinacooda xiga
guriga markii la geeyey waxaa la yidhi halkaan agtaas ha lagu hayo 3 bilood cudud ay ka baxaso waxaa la yidhi bog iyo xabad u tumaaday iridda istaagtay wiilashii gurigii markii la geeyey waa aniga xanuunsaday wiilashii day isbedelayaan qaar isbitaal bay ka shaqeeyaan qaar ma aragtay basas bay wataan qaar taksiya magaalada dhexdooda qofna ku xayirnaamay markii wiilashii tagaanba wiilkii waa la hadlaa waa isku baxnaa waa isku dhuumanaa isku tagnaa saacaba meel waxaan leeyahay waxba iga siiya ma aqaani aniga nafti baa i haysata yaami hore wuxuu dhihi jiray waa xorriyadda lagaa qaaday saas ma ahan marka yaamihii dambe wuxuu ku dhahay dhakhtar baa ku geynayaa uur baan kaa soo baaray uur miya haa haye wuu i kaxeeyey marka waagaas jawaabtu way soo daahi jirtay asagaa doonay waxbaa layga baaray uu iska kaysoo celiyey guriga iska adbiyaan lagu dirin gurigii baa imaaday maalinkii dambe wuxuu igu dhahay ii imo soo baxay meel marka waxaa isku kulmi jirnay banaana oo wayfo xarig baan ku xirana marka wayfo camal ah ciyaari jirnay uu ii sheegay wuxuu igu dhahay uur baa leedahay ilmo yar baa caloosha ku wadaa ilmo maxaa la dhahaa uur baa leedahay ilmaha noo dhalan doona markaas baa waa baxay markaas waxaan ku yidhi oo ninkii baa la rabaa in laygu daree marro hareystaba reerkaaga u sheeg buu yidhi haddii adoo uur le nin lagugu daro ma isguursan kartaa reerkii baa u sheega waxaa ku dhaha aniga saas miya aha aniga waa xanuunsanaya uur baa le oo uurka yaa ku baray jufan awdan bala ku aragtay waa lay garaaca been baa marka la iga haystaa wixiisaa u wadaaba markii la arkay xanuunkayga waa la ikaxeeyey dhakhtar baa la geeyey uur walaalkay marka wuxuu ahaa askarta bista ku jira wuxuu yidhi dhakhtarkii iga soo wuxuu yidhi hadda kasoo tuur naaw inta kuu jeedo ilmaha banaanka soo dhig dhakhtarkii wuxuu ku yidhi dhakhtarkii ilmaha iga helay walaalkay wuxuu yidhi ilmaha hadda soo tuur inta kuu jeedo ilmaha hadda soo tuur bil inta kuu jeedo walaana qof muslim ma ahay ilmaha ma soo tuuraye oradaa soo tuursi meelaha uga soo tuur adigu ku xanaaqay wuxuu yidhi kasoo rinaad kama soo ridayo maamooyinkiibuu wacay eedooyinkay maamadii waxay dhaheen faraha ka qaad waxaan iska sheeko ma aragtay dumar anaga dhammaynanin bari iyo balaayo iga dharjiyeen marka la ii garaacayo halka gumaarka baa layga dhufan laygu dildilaya sidii wixii inay soo baxayaan adigu wixii sidaa la igu wadaaba ultimadii bil camal markii waxay igu wadan dhiig baa iga furtay waa dhiig baxay manaayaa bartaa joog dhakhtar laguma geynayo ayagaa waxaan iska soo dhammaanaya wasakh weeyaan ninaa la caradhay dhibaato anidadaa la dhashay labadooda mid waxaan ku yidhi ma doonayo ninkaan xanuunsanaya wiljarka ku socda loo qubeynayo oo waxaan ku yidhi baraliska ma doonayo haddii xoog laygu darana wiilkaaga dhimashadiisii baa ma aragtay ka talinaysaa haddii kale ninkaa liga adii maamadii way xanaaqday wiilkii tigid ba u jirtay way duuleen ayadii wiilkeedii waxay tiri meeshan faa'iido kama socdo shar maana maan balaaya ka socda adii sidii bay ku duuleen ku tageen 3 bilood iyadana ka soo wareegin baa haddana waxaa imaaday abtigay hooyaday in adeerkeed labaad laba walaalaa waa kala dhalay in adeerkeed runa in adeerkeed labaad maaha abtigay baa imaaday abtigay baa bartay abtinibaa u barta wiig kadib wuxuu bisu kasoo jaray gabadha in laygu daraa rabaa gabadhaan baan ka helay gabadhaan yarta inaan guursada raba anigana ninka baa laygala cararaya ogow bas saxba la ima sheegin marka si dhaqso ah baa arooskii loo dhigay meherkii habeenkii baa waxaan ka war hela digsiyaal halkii jiidayo uryaal aroosiya walaashaa kaa weyn sidii baa markii dambe subaxdii meherka ku dhaca meherka markuu dhaca anigu waxay ila noqotay ama kaag ninkii baa laygu meheriyey aroos khasaba oo aanan rabin baa lai dhigay hotel baa lai geeyey saaxiibkay meeshiibuu marka hotelkiibuu ka imaaday meeshaasu ka oynaya anigu waa oynaya waxba iskuma qaban karno adii sheekadeena waxay socotayba wiilkii sidii baa saaxiib ku naha hotelka waxaa jira foto u dhow oo saaxiibkiisa footadaasu imaadaa footadaa markuu imaado odayga markuu baxo abtigeeya oo uu aado jaamacad buu dhigi jiray jaamacadda markuu aado
baan waxaan sameeyaa saaxiibka u degtaa sawiraan baa iskala galaa wadada meel luuqa ku sheekaysanaa adiga process waxaa galnay loo tiri inaan ka fakarno loo tiri xareysano oo waxaas baa nagu dhalatay marka sheekadaas mar hore inta nagu dhalatay intuu maalmuhu uurka ii sheegayaba adi final loo tirigi waa soo baxay saaxiibkii sawiraan baa wada galnay mac salaamo ah sawiraantii marka intaan qaaday baa gurigeena geeyey gurigeena markaa geeyey 2 wiil oo walaalahay iga yaryar adi xaafadii waa tusab gabdhaha walaalahay tusab maamada ma tusin laakiin gabdhaha walaalahay iyo wiilasha 2 wiilal kurayaa bay ahaayeen sawiraantii waa lala orday waxa loo geeyey bay ahaayeen sawiraantii waa lala orday waxa loo geeyey abtigi qabay sawiraanta markii loo geeyey sawiraanta marka waa sawiraan aad baan wiilka iskugu dhegdhegano marka adigoo lagu qabaa sawirada galaysiin oo tagay saaxiibkaaga waxaa ma sameynaa laakiin sawiraan baa wada galna caadi sawiraan laakiin wiilka sawiraanta naga qaaday wuxuu leeyahay wuxuu tusayaa sawiraantii Titanic ay wada galeen saan bay iskugu dheganaayeen saan bay u galeen sawiraantii Titanic baa galna wiilkii sidii buu ku tagay sawiraantii baa ninkii loo geeyey laabtoon yar oo watay buu ku sawirtay habeenkii uu ila imaada sawiraanta marka waxaa galay Arbaco khamiistii baa loo geeyey khamiistii markii loo geeyey shimcadii buu yiri qaybta fadhiga kaal xaggan soo fadhi qofkaan ma garanaysaa saa ku yidhi haa waa aniga maxaa waaye saa ku yidhi waxaan waa hore waxaan hadda ma qabtin haddana waxaan qabaa dhegihii aan ku galay wixii aan ku galo dhan baan qabaa gabar walaashay guriga markaa tagay waxay ugu tiri iska bixi waxaan aqabtay so waa la isla ogaamiyaa in waxaan la fashiliyo muuji waxaan iska bixi bay ugu tiri waxaan ku yidhi iska bixi maayo adiga waa ku dhagaadeegay inkeelka markaa tagay wuxuu igu dhahay waxaan hadda qabtid ma qabtid maradan hadda ma ku taalo marihii dhan buu istusa marka waa bariya marka abtiyo way sheegin waa la dilayaa waa ku ooye sonkor buu qabay marka wuu gariiray waa qisa cajiib ah oo xanuun badan barnaamijkeena qayb labaad aan ku dhamaystiri doonaa sheekadaas aad ujeedaan waxay ku dhacday gabar oo si fiican loogu falanqeynaysay qof walba oo qisooyinkaas oo kala haysto ama la fadhiyo waa soo dhaweynaa hadda dad badan ay la soo xiriiro barnaamijyadas inay ka sheekeeyaan rabaan waa idin soo qaban doonaa tan iyo mid kale intaan ku kulmi doono waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu